warbixin guud ka bixiyo xaaladda cuntada iyo beeraha ee Soomaaliya oo runtii aad iyo aad u muhiim ah kormar baan ka bixin doonaa wixii su'aalaha aad ka qabtaanna way iga weydiin doontaan xaaladda beeraha markaan idhaahdo iyo xaaladda cuntada waa labo waxay u yihiin cuntadan cunno kulligeed beeraheena kama soo goosano sidaasay laba magac u kala yeesheen laakiin innaguna waxbaan beeranaa qayb ka mida nolosheenna ayay wax ka tartaa cunto kalena waa soo dhoofsanaa marka waxaan ummadda Soomaaliyeed caawa la wadaagi doonaa xaaladda guud ee dalka intaan ka karo cuntada iyo beeraha waxaan la wadaagi doonaa beeraha iyo faa'iidada ay leeyihiin in la beerto runtii dad badan anigu xataa markaan banaanka joogana saa u ogay waxa ku jira faa'iido iyo waxaan sidoo kale la wadaagi doonaa cuntada dadka Soomaaliyeed cunaan sida nooceedu ay tahay wasaaradda markaanu nimid shirar badan oo tagnay kuwa geeska Afrika iyo kuwa kale oo caalamka ah waxaanu aragnay inaan Soomaalidu u noolayn sida dadka kale u nool yihiin macal geeska Afrika inaan u noolayn marka waxaanu baaris ku sameeyno daraasad ku sameeynay habeerashada Soomaaliya iyo habeerashada kale caalamka cuntada Soomaaliya iyo cuntada kale caalamka sida ay yihiin habeerashada Soomaaliya waa hab qadiimi ah dabcan markii hore adduunka oo dhami midba maalin buu ka baxay saas ahaan jirtay qadiimiya oo traditional yani traditional waxa weeye wax dadku ay awooyaashood ka dhaxleen cilmi kuma jiro lacagina kuma jirto dad tuulooyin iyo magaalooyin degan dhaqan ahaan u lahaa inay wax beertaan way cuntada Soomaaliya laakiin adduunku saas ma adduunka marka waana wax dadka wax haysta iyo kuwa wax bartay badankoodu ay ka faanaan oo u arkaan shaqo liidata u arkaan waay beeraha Soomaaliya laakiin beeraha adduunku waa wax dadka sharafta leh galaan waa wax dadka wax haysta iyo bangiyadu ay galaan oo bangiyo ka mas'uula ama shirkado waaweyn ayaa ka mas'uula cuntada marka ay soo goodana companiyo kale food security ama food companies ayaa wata oo looga ku dhajiya inna kala kabdadooyin baa laga soo ururaya goboladaas suuqa la isugu keenay waa wax dadka adduunku ku noolaan jireen boqolaal sano ka hor marka anigu markaan shirarka tago haddii la dhaho dalaga dadkaagu muxuu cunaa maxaa ugu muhiimsan wax inoo muhiim oo male bariis dad kale beeraan baa inoo muhiima kow galley baan idhaahdaa meeqaad food security yaa ii soo ururiyay food security waxaan ahay meeqaad boqolkiiba isku filnaateen daraasadda ma la keeni karo waayo waa kabdado la soo ururiyay kambaniba kuma jiraba lacag kuma jirto tala kuma jirto shirkadi kuma jirto adduunka kale laakiin way yaqaan marka habka aan wax u beeranaha primitive oo gaboobay oo aan cunto aynan ku heli karin waa total taas waa number 1 beeri halkaas aan uga baxaya lacag kuma jirto cilmina kuma jiro waa hab dhaqameed way cuntada Soomaaliya cunto dabcan cunto badan waa soo baxnaa for example cuntadu waxay ka kooban tahay afar waxay ka kooban tahay midho dee beera ka soo go'ay hilib oo caanana wata xoolaha waxa laga helo kalluunka iyo biyaha cunto way dabcan biyo ma soo dhoofsano hilib marka laga reebo digaag ma soo dhoofino kalluunna wax yar uu mooyo qashin oo meelaha laga keeno marmarka qaar qasax ku jira mooyo ma soo dhoofsano waxaan deficit ku jirnaa midhaha aan deficit ku jirnaa ama ku jirnaa yaraansho xogli aan ku jirnaa midhahaas
ama waxyaalaha beeraha ka soo go'ayna ku yar dalkeenu dal hodana weey sida uu ku bilaabay codayna midhaha dhulkeena ka baxa iyo hilibkeenu waa kuwa ugu fiican adduunka wax ka macmale meesha doonto tag hilibka Soomaaliya ee ariga Soomaaliya xoolaha Soomaaliya ka ugu macweey all over the world mooska Soomaaliya ka ugu fiican waay all over the world aan dhameeyo laakiin inaku ma aaminsanin waxaynu cunaynaa aniga markaan dawladaha tago beere ii geeyaan waxay yiraahdaan beertan waa for commercial waa dhoofinaynaa waay sunaa lagu shubayaa bacri saayida lagu shubayaa dadkooda ma siinaayeen marka waa for commercial waa la iibinaa waay annaka dan kama lihin waay waxaan xanuunada ka qaadnay way marka kuway dadkooda siinayaan si gaara loo xanaanaynaya waa la geeyaa maalin kasta beera la geeyaa leeyad kuwan ganacsi waaye xoogan ugu aan u soo saarno marka cuntada aan cunayno dalkeena wax ka fiican marka dadkeena waxay cunayaan wax aanay tayadoodu waa baadhnay shay baraan ku samayn lama cuni karayo waa baari kartaan shay barada daqaada shirkaduhu ha qaadeen cunto tayadeedu aad u hooseyso way marka warbixinta guud ee dalku waxa weeye dalkeena meel aan wax laga beeri karin male nin baa yidhi gaalkacayaan maalin anoo airportka joogaan arkay wax badan oo cagaar oo la qaadayo markaasaan yidhi xamar loo soo qaaday markaasaan yidhi war ma qaad baa ma waa khudaar baa leeyahay khudaar baa xamar loo wadaa kabsar waa Soomaalidu waxay u taqaanaa gaalkacyo iyo inaan waxba ka baxayn meel aan dalkeena fertile ahayn ma jiro marka haddaan soo gabagabeeyo waxaan yidhi beeraha iyo cuntada dadka Soomaaliyeed waxaan kula talinaynaa cuntada dalkiina cuna cuntada kale xanuunaa ka qaadaysa beerahana waxaan kula talinaynaa waxaanu isbarbar dhignay in qofku sar dhisto I hope in teamkaygii caawa presentation samayn karayaan iyo inuu beer fasho for example inuu mid walba ku maalgeliyo $2 milyan daraasadaasaan samaynay boqolkiiba boqol waxaa faa'iido badan inuu beer geliyo $2 milyan iyo xoolo isku dhafan inuu geliyo ayaa u faa'iido badan daraasad la sameeyay oo dadka aan la wadaagi doono way si kasta oo loo fiiriyo waxaa faa'iido badan inaad beer iyo xoolo isku dhafan aad geliso $2 milyan iyo inaad guri dhisato kirayso waxaa faa'iido badan inaad beeraha geliso marka annaka talada aan wadnaa wasaarad beero waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxay xaq noogu leeyihiin inaan si daacad ugu shaqeyno annaguna xaq waxaan ugu leenahay dawladdoodii baan nahay inayna maqlaan baa xaq ugu leenahay soo ma aha cuntada la soo dhoofiyaha cuninina beerahana faa'iida ku jirtay fasha annaka taladeedu waa taas haddaad diidaysaan haddee annaka allahuma ballaqto waa ka baxay way adoo mahadsan tahay macali wasiir imise qofooda raashinka dalka joogto u cunta yaa gacanta taagi kara galleyda masagada digirta wasiirka